sanad waxaa jirtay marar badan oo hadallo kutaana suuqa lagu galiyay kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in gacan iyo wax lagu jaray berigii biliib sacuudiga bal arrintaa iyada waxaan rabaa inaad dadka u caddayso u bayaaniso. waa ku bayaaninayaa walaal horta waxa waaye meesha sacuudiga lagu xiray sacuudigana nimoo ilaahay jecel yahay horta ma gacan geliyo waa niman aan sharci lahayn waa niman sidaa dad kor ka maqasho islaam aanay leeyihiin laakiin islaam qumanna maaha gaalo fiicanna maaha waa ogtiin sacuudi arabiya hadda dadkaan sulaalka gaaban oo dhan ayagaa noo soo diray nimanka wahaabiyada waa dhibaato marka nimankaas way xireen wax dembiya markii laygu waayey oo la wareeray ayaa markaan xiraa 5 sano iyo wax la jira ayaa xagga dowladeydii ayaa maaragtay la hadashay oo tiri ninkaas ayaan ku xiran meeshii haddii uu dembi idinka galayna ka goosto oo gacanii laguba ka gooya haddii laakiin uu dembi lahayn maxkamad soo saara oo ninkii bannaanka keena naayif bin cabdilcasiis oo wasiirka daaqiliga ayaa wuxuu dhahay laa yumkin wax suuragala maaha in 5 sano wanuusoo nin xiran yahay sharci la-aan iyadoon la xukumin madaxweyneheennu wuxuu dhahay way dhacday bal hala raadiyo nin ilaa oo janal ayaa la soo diro maxamed asayaan la yiraa oo jenaraal afriiq ay dhahan ninkii ay yimiday maalin jimcaha wala uu yimid jimcaha marka dadka ay dilayaan jimcaha u yeeraan badana laakiin aniga waxba ma ictiraafsanayn laakiin niman badan oo arrinta dacwada igula jiray oo nan xataa weligeen is aragoon is aqoon maxaa yeelay ninka sargaalka oo sacuudi arabiya markuu qof qabto hal qof kaliya iyo 2 qof dembi maaha laakiin casaabo waa baanta wixii Soomaaliya oo jidka laga helo dhan ayaa la soo qabanayaa baandadii hebel ayaa la oranayaa haday 100 yihiin haday 200 ninkaas uu dalacayaa marka looyarka celinaya male diinka celinaysa male oo diin ma yaqaanin waxa isticmaalayaan oo dhan warardiga uu ilaahay iga soo bixiyay markii dambe waxa la yiraahday aniga iyo nimankii markii maxkamadda la geeyay ilaahay ayaa idin gartay meeshan istiraahad ku jirteen adinka meeshan iskeenteen anagu idinma keenin hadee wadankiina idin tirxeeyna ma ogoshin waa ogolnaan marka waxa waaye wax laga hadlo ma maxay dadkeena oo aabahay iyo hooyaday iyo awowgay ayaa duka jiray anaguna waa dukadaa laakiin Saudi Arabia islaamnimada madmadow ay galaysaa hadii ama lagu xiraamo aad aragto sida wax sameynayaan sharci la'aanta ilaahay ku gartay kuleey warqadayga daatira ilaahay wuxuu gartay inaad joogto waligaaba marka ilaahay ma waxaan kartaa had waa dhibaato ilaahay marka uu magacan galiyo dadka amiin waxa kale oo aan ahayd su'aasheeda ugu dambeysana oo ku weydiin rabo heesaha aad qaato abwaankee u badan heesahaasi ayaa laxankooda ku sameeyay ma adiga sameeyay mise dad kale walaal heesaha aan horta qaado anaa badankooda saxan waxaan sidii u badan laxanka horta aniga sameeysta laakiin riwaayadihii ayaa u badnaa ninka la yiraahdo ama singub ayaa horta u badan waxa ku xiga maxamed cali kaari ilaahu naxariiste waxa ku xiga cali diiri cali gaab oo reer Djibouti oo nin korneela ah waa berigii hore dadkaas u badan horta dadka aan maartay anigana heesaha qaarkood waa sameeyaa riyaasha laakiin badan ah riwaayadaha singuba sameeyay qabrigii xuskii xuud baa laga jacaylkii kuwa Afrikaan qaadinay waa sidaas aan ku sheegay aad baad u mahadsantahay Salaad Maxamed Shardi waraysigan caawa qaaliga ah halkan nagu siisay waanigu Cabdirashiid Maxamuud Xasan waa salaamantiin kulligiin qayran idin dhaafay sidaas iyo nabadgelyo gudbaan ku dhaco gaabiyo sida ruux gondola burbuurke garbaduubni loo xiray geesna uma dhaqaaqe sida gooyadii baan ku gayoomay aydoon cid la gooni taagnoon gabagabo istaage
maysaan gedeeda hashii godlatee gaagaxdee gorobkii maysaan gedeeda ahoon gacalin mooday geri kama fogaade ahoon gacalin mooday geri kama fogaade sida guyadiibaan ku gayoomay aydoon cid la gooni taagne sida guyadiibaan ku gayoomay aydoon cid la gooni taagno gabagabo istaage magargaar la'aanba sidanaan ku go'aya magargaar la'aanba sidanaan ku go'aya mise gooraygaadaba gacantaan ku leelaya godbaan ku dhaco gaabiyo sida raqbandalaan durguume loo xiray gednoma dhaqaaqe gabadugni loo xiray gednoma dhaqaaqe goofaan irmaane galsha laga cabaayo gal xareeda moodo goofaan irmaane galsha laga cabaayo goofaan irmaane galsha laga cabaayo gal xareeda moodo biyo gaad waaye magargaar la'aanba sidanaan ku go'aya magargaar la'aanba sidanaan ku go'aya mise gooraygaadhaba gacantaan ku dhigaya